shirkadda Google ayaa soo saartay headphones cusub oo ay sheegtay in si toos ah ay u turjumi karaan 40 luuqadood oo kala duwan. xaflad lagu soo bandhigay magaalada San Francisco ayaa sameecadaha Pixel la keenay iyaga oo turjumaya wada sheekaysiga qof Ingiriis ku hadlaya iyo qof Swedish ku hadlaya. Headphoneskan oo aan xarka lahayn waxay ku shaqaynayaan taleefankii ugu dambeeyay ee Google. Microsoft ayaa ku soo kordhisay wax cusub aaladan lagu arko muuqaalada khiyaaliga ah. qalabkan muuqaalka oo la yiraahdo HMD ayaa u ogolaanaya in ay dadku kula socdaan deegaanka ku xeeran. waxa uu isugu jira waayo aragnimo muuqaalo khiyaali ah oo ku salaysan wax kombiyuutarku uu sameeyo oo la yiraahdo AR kuwaas oo isku daraya muuqaalo kala duwan oo ku saabsan dunida. toddobaadkan waxaanu eegi doonaa robotka Honda ee bini'aadamka u eg. waa robot meelaha dhibaatadu ka dhacda loogu talagalay oo maraya meelo ciriiri ah jaranjarana fuuli kara. waxaa la sheegay inuu ku shaqaynayo cimilooyinka kulkulul gaar ahaan meelaha masiibooyinku ay ka dhacaan. waxaa lagu magacaabaa E2DR. cilmi baarayaal ayaa ogaaday qaab alaabta maalin walba aynu isticmaalno iyo weliba jirkeenna aanu kor uga maamuli karno. kaamaro ayaa la soconaysa dhaqdhaqaaqa qolka aad ku jirto kadibna u turjumaysa waxqabad iyadoo aan ahayn kuwii aanu naqaanay. alaabtu waxay noqon karaan wax walba oo ku jira toyga carruurta iyo weliba gacantaada.